واتاي داوديال waa showgi gaar haye oo idinkaga imaanaya stuudiyahayaga magaalada London waxa idin la socodsiinaya anigoo ah Cabdulwaaxid Cabdullaahi Khaliif waxa isku soo dabriday ustaad Muxiyadiin Diiriye Nuur Wadani oo Canada jooga waxa caaw martino aqoonyahan ku xeel dheer arrimahan geeska Afrika Faisal Cabdi Roble oo jooga Los Angeles California Faisal hadda faarax horta lama joogo waa soo celinaynaa si nabadoonnimada waa soo uga hadlay wuxuu rabay waa siyaasi in isku soo dhawaado marka arrimahan waa kala niqaashayna asagan keenayna laakiin maxaa Soomaali hadda looga doodaa waa arkaysay ormadii say u soo dhaweeyeen yani OLF maanta dadkii ardisaba dhalinyaradii annagana waxay naga maraysaa jigjiga annaga iska leh dir baasaas tiri daarood baasaa yiri marka qowmiyadan Soomaalida ama qaranka ku sheegtay haddaysan ba uma qalmaan ba hadda dhul inay lahaadaan maxaa looga walayaa marka well horta runtii waxa jira waxa la yiraahdo the pathology of the oppressed ninka la cadaadiyo dabeecadu iska leeyahay ninka la guumeystaa dabeecadu leeyahay dabeecadaha Soomaalida guumeysigu aad iyo aad ugu talaalay waxa kamid ah waxaas oo kale ninkan iminka le jigjiga annaga leh jigjiga kuma dhalan mana yaqaano asagoo nin weyn u yimid ninka Mustafa ka sheeganaya miiska u garaacayay shalay toole lahaa jigjiga annaga leh he has nothing to do with jigjiga almina qabiil waxan ka ahayn waxan waa garasho xumo iyo garasho la'aan iyo dadka Soomaaliyeed oo iska jaahila taana anigu formulaheeda ma hayo nin formulaheeda haya haduu jiro sidii lagu daweyn lahaa dadka Soomaalida kan bandarbayla jooga ilaa ka aan ku idhi Adsaaba ayuu 75 kilometer u jira ilaa ka Kenya jooga horta dhibaatada way leeyihiin kaliya waxaan oran karaa dadkan Soomaali galbeed intii hore dadka way ka roonaayeen dhibaatooyinkan badan ee qabyaalada ee 4.5 waxay meesha yimaadeen intii dambe ee Soomaaliya burburtay kuna soo butaacadii baad waxan aad arkayso waligeed ma ay dhicin Soomaali inuu reer u yiraahdo jigjiga annaga leh mana leeday annaga beerta hooyad meesha magaaladu ka unkantay waa beerta hooyaday ka aabahayna waa halkaas ma fahamtay dhalinyaradii u halgamaysay baanu ahayn habeen iyo maalin intay underground cells ka sameeyeen cell waxa la yiraahdo meel lagu munaaqashoodo muxaadarooyin lagu akhriyo diinta iyo kitaabka hanti wadaaga la isku xoreynayo aanu ku akhri jiray saan isugu celin lahayn cadawga dadkii ku ababay baan nahay mana sheegan karno waxaan ku sheegayaa gaar hayo markaan magaalada jigjiga ka baxnay 12 inan baan kaga baxnay ninkan aad sheegaysay maalinta dhow jigjiga u sheeganay Mustafa nuguma jirintay Arab baan ugu jiray Soomaaliyoobay waxaan ugu jiray nin Umar Samatar awow u yahay waxaan ugu jiray nin baala ka yimid waxaan ugu jiray reeraha jigjiga dega oo dhan mar baan qori doonaa oo sheegi doonaa cid ay ahayd waxa la inamadaas oo dhan oo teenage 14 jir ilaa 22 jirka ugu weyn u ahaa waxa kulmiyay waxay ahayd qadiyada Soomaaliyeed iyo waxaan ku yiri Umar Samatar nin uu awow u ahaa ku jiray Umar Samatar wuxuu tagaaday Siwakhron waxay degaan isku shubanalaas bariga laakiin wadani Soomaaliyo ahaa ninka noogu wadanisan waa nin reegabile u dhashay baa ku jiro markii dambe SNM dagaalkeedu ku dhintay wadani Soomaaliyo waxaan qashinka hadda meesha keenaya ma ay jirin taariikhdana kuma ay jirin halgan kan dheer ee Soomaali loo soo galay ee markii dambe dhalay Soomaali galbeed ee markii dambe dhalay Itixaadka ee markii dambe dhalay ONLF annagu waxaan rabnaa in la dhowro halgamadaas in halgamadaas iyo taariikhdeeda meel aan laga dhicin jigjiga 3 jeer ayaa Soomaali laga doortay from 1960s lixda meeyihii ilaa 7 meeyihii Xaaji Abiib Siiyan nin oran jiray baa la dooran jiray oo gari koomba Soomaalidu dhanna isaga uu isugu ridi jirtay ciday doonaan noqotay isaga iyo naadirkii markii dambe kala qaybsamay waxa la doortay nin habar awala Cornel Caliwan 1974 waxa ku xigay oo la doortay nin Samarona oo Cali Cabdilayda waxa soo dhanna waxa loo dooranayay ajendaha ay soo bandhigaan ninkan uu leeyahay reewil walba abtigay rum u ahaa hooyaday walaalkeed waa uu waayay reejigana uu ahaa that was 1974 electionkii ugu dambeeyay Ethiopia taariikhda yaan laga been sheegin jigjiga waliga governorkii Soomaaliya ku sheegaya xabashi buu ahaa 1960s ninkii la oranayay Girman Nawai one of the most progressive people dadka ugu hor socodsan bini aadmi xabashi ka dhasha
buu ahaa German way waa ninkii yidhi dadka Soomaalida xuquuqdooda hala siiyo ee markii dambe isagoo soo qaxay lagu dilay Wajaale Jigjiga inta u dhaxaysa waxa ku xigay in Sheekh Xasan Wacdi Suldaan Sheekh Xasan Wacdi Maxamed Sheekh Xasan Wacdi ayaa governor ka ahaa 70skii waxa ka ahaa oo kale Cabdilaahi Bade dadkaas u kala duwan yihiin midba meel buu ka yimid sheekadan foosha xumuu ninku shalay meesha soo dhigu lahaa niman reewiil wala hayn man noqon karo meeyarka Jigjiga Mustafa inuu waxa dhag u dhiga maaha inuu kaasoo kale agtiisa soo mariyana maaha isagaana khaldamay oo markuu jaahiliin 4.5 marka horeba ku soo xiraystay gaar hayow waanu ogeyn sheekada foosha xumina dhacayso qofka Soomaaliga ama farmaajo ha noqdo ama kan deegaanka jooga ha la noqdo waxaad heli kartaa dad Soomaaliyeed oo iimaan leh oo wax bartay oo karti leh oo wax kula qabanaya 4.5 dib mooyo wax ku soo kordhinaysa ma jirto waa tahay waa points fiican dadka ummadda kala qaybinaya in saa runta loogu sheego waanu ku mahadsan tahay mar dhanba arrimahan in si joogta ah uga hadashid weeyo dadka la daaweeyo tada kale magaaladu ma noqonayso meel yani jufa sheegato waxa la rabaa in magaalada dadku isugu yimaadaan waantana wixii aad sabab ka dhacay runtii qofkii dhiig Soomaali ku jiro wuu arkayaa inay saasoo kale jamhadooda oo aan lafako loo soo dhaweeyo laakiin mar horaaba leeyahay oo aan lafma imaanayso okay bal waxaan u galeynaa tii Soomaaliya laakiin inta ka horeysa si kooban waxaan noogu sharxadaa qaybtii geeska Afrika Eritrea iyo Ethiopia arrintan Djibouti iyo tan leeyahay bari Sacuudiga u yeeray waxbay ku saxiixayaan bal taas horta bal ayadana wax ka dheh ma runtii arrimo dheer oo soo dhamaan raba ay u egyihiin san maalin hore kula qaybsaday adiga Eritrea iyo Soomaali galbeed waxay ka ahaayeen horyaal halganka Ethiopia umad qowmiyaduhu xuquuqdooda ku raadsanayaan nin Cabdi Xabashi la yiraahdo oo runtii dadkii ugu horeeyay ahaa magaalada Adar iskuulka galaba wuxuu ii sheegay Maxamed Saalax Saabi iyo ninka canfarta hogaamin jiray iyo nin Soomaali oo kale hadda magaciisa aanan sheegayn inay isku dhaarsadeen Adsaaba 1961 ayagoo high school sida Ethiopia u kala furfuri lahaayeen Maxamed Saalax Saabi ninkii kala wareegay arrintaas wuxuu ahaa Isaias Afwerki oo markii ugu horeysay ay qabato qaybta Kristanka ee Eritrea halganka Eritrea Isaias baa ugu horeeyay oo 1968 meelahaas intuu jaamacadda ka baxsaday jabhadii ku biiray ELF-tina kala qaybiyay oo EPLF oo garabka bidixda raacsan sameeyay Isaias waxaan jabhadaha meesha ka dagaalamay oo dhan OLF TPLF OPDO iyo Gimbood 7 hadda margiga dhow soo baxday intaba gacan buu ku leeyahay sameyntoodii waxa hadda dhacday in geopolitics-gii geeska Afrika uu isbedelay in Arab iyo reer galbeed ay isku raaceen gaar hayow in geeskan la dejiyo hadaan la dejin inuu China gacanta u galeeyo sida maalin hore sheegay China lacag xoog leh bay Ethiopia gelisay ama culusna Ethiopia intaasay kula jirtaa maray ka bixi Allahu yaclamay taas ayaa waxay dardar gelisay siyaasadda Mareykanka ee ku aadan geeska Afrika iyo Sacuudiga iyo Khaliijka oo wixii la rabo ama diplomatic office sida shirkan ay hadda isugu yeereen ha noqoto ama waxyaabo kale ha noqoto ay u fududeyn doonaan hadda walba waxa la filayaa in heshiiskii ay gaadheen Eritrea iyo Ethiopia ilaa imika wuxuu ahaa niyad sami iyo wanaag iyo labadooda kaliya in wixii la memorialize gareeyo dadkan way naga ilbaxsan yihiin sida Soomaalida laablaka ama aha waxaad ogeyd Algeria arrintii markay ka heshiiyeen baadhime wuu diiday Isaias inuu qaato ilaa lagu saxeexo meel adduunku u dhan yahay mooyee wati Algeria la isla tagay wakiimada iska cagajiiday isagoo saa isku jecel yihiin Abiy haddana ma aaminayo Isaias maadaama uu yahay dal yar inuu yahay ilaa si fiican loo saxeexo oo marka si fiican loo diiwaan geliyo Sacuudiga iyo kuwa kalena ay damaanad qaadaan bimacni implementationkeedii iyo waxaas halkaan waa laga sii amba qaadi doonaa waxa kale oo la sheegayaa in la rabo in Isaias ay Sacuudigu ka gacan qabtaan sidii cunaqabataynta UN-ta iyo waxyaabahan igaad iyo waxaas oo dhan dardar loo gelin lahaa sidii looga saari lahaa way wali cunaqabatayntii oo ku jira mid Eritreanku ay ii sheegeen waxa weeye Isaias wuxuu rabaa inuu hadda koofiyad caafimaad qaba gashado oo Sacuudiga iyo dalalkan iyo even Ethiopia qudheedu ay kala shaqeeyaan si wax Arab Spring oo kale aanu ku dhicin oo iyagu ay intay karaankooda ay ka caawiyaan Isaias in deganaanshaha deegaankiisa uu sii deganaado marka waa arrin furmaysa runtii waa arrin
aad loo soo dhaweeyo in geeska africa xabaddu ka joogsato waad ogtahay SIS far baa ku gudnayd in uu al-shabaab hubka siiyo lacaguhuna ay u soo maraan isaga ama lacagayo iyagu ay hub ku soo iibsanayaan ama xawaaladaha iyo mucaamada ay soo siiyaan dadyogan carabta ee al-shabaab maalgeliya taaqudheedana haddii ay run tahay in lagala hadla ayaa dhici karta laakiin marra muu SIS arrimahaas marra muu qaadan waxa kaloo dhan uu ogyahay waxa kaloo dhan uu qaatay laakiin arrinta al-shabaab inuu gacan siiyo waa ka biyo diiday marka runtii waa isbedel cusub oo socda arrintani Soomaaliya xagay maxay ay uga dhigan tahay runtii arrimo badan bay uga dhigan tahay gaar ahayo the more kolba marka uu deegaanku furmo oo dimuqraasiyadu ballaarato oo dadku isdhexgalaan Soomaalidu waa ka faa'iideysaa waka faarax macallin jigjiga tagay waa arrin aad loogu farxo bari anigii adiga tagi karna oo si fiican leenoogu soo dhaweyn karaa dad badan oo Soomaaliya oo republic hadda ka soo socda baa tagaya dimuqraasiyadda geeska Africa number 1 cid ka danaysanaysa waa Soomaaliya sababtu waxa weeye dimuqraasi la'aantu dadka ay aad u yeeshay oo aad u cuna qabataysa oo dhaqaalahoodii dishay oo 20kii sanaba mar dagaal lagu qaada waa ummadda Soomaaliyeed ama Hargeysa deganaado because ka daroor lagu laaya de Hargeysu tagaya bari ka galaadi lagu laaya wuxuu tagaya Garowe marka haddii geeskan Africa isku xidhmo haddii Commonwealth even la sameeyo ideas iyo fikradahana bari hore laga dhawaajiyay ma Commonwealth baa la noqdaa ma noocan Swedish ka la noqdaa oo inkastoo qoomiyad kasta dhinaceeda ay tahay laakiin barwaaqo sooran dawladnimada meel qaarkood la qaybsado baarlamaanka la qaybsado geeska Africa waxyaabo badan baa soo bixi doona laakiin hadda golba gidaarkii dadkan kala xidhxidhayay in gidaarka meesha laga saara waa arrimo aad u fiican Soomaalidana ka faa'iideysa waa tahay bal aan soo noqon dhinacii Soomaaliya maxaa kaaga baxay khudbadii Michael Keaton uu siiyay golaha amaanka waxa iga baxay Ereban doonayaan ku isticmaalay laakiin oran maayo waxa iga baxay inuu leeyahay shalay maanta waa isku mid sentence-kiisa ama hadalkiisa wuxuu ku bilaabmay 2016 July mise June baan imid airport-ka la iga soo qaaday madaxtooyada la geeyay arrintii ugu horeysay la igu yiri ka duqee ama ka garami waxay ahayd dawlad goboleedyadii iyo dawladii Xasan Sheekh Maxamuud waqtigaa joogtay baa soo kala taagan maxaan sameynaa maanta oo ka soo baxaya buu yiri markaan shaqadeydii dhameystay waxaan xamar ka soo baxayaa buu yiri labadii dhinac oo meeshii ay beriga taagnaayeen kala taagan waxyaabo fiican waa la qabtay waxyaabo badan waa oo lagu diirsan karaa way jiraan laakiin lazman sidii ay u cakirnayd xiriirka labada haykal ee ugu weyn dawladda federaalka Soomaaliya waxa la yiraahdo oo ah dawladda dhexe oo dadkoo dhan wada sameysteen iyo dawlad goboleedyadii oo bisad iyo jiris ku noqday arrintaas uu ku bilaabay wuuna ku dhameeyay maxaa arrintan u dhacaysaa weeye gaar hayo runtii arrintan waxa u dhacaysaa aniga say ila tahay waxa weeye dadka ma aha inaanay Soomaali u bislayn nidaamka waxa weeye dadka labada dhinacba jooga quality-gooda madaxtooyada Villa Soomaaliya waxba qarin mayno dad fiican oo madaxweynahaas talo uu ku meel marasiin kara weeyri kolaba way istifaacaya waa ognahay kolaba way ka qayliyaan statementiga aan sameeynayo kale laakiin haddii ay dad madaxweynaha wax la qaban kara ay yihiin arrintu heerkan ma gaadheen dad aan anigu ku jirana hoos ahaan baan ula hadalay labada dhinacba inay arrintan wax ka qabtaan ama wasiiro ka tirsan dawladda dhexe oo war arrintan intaanay fogaan sanadku hore arrintan intaanay fogaan farmaajo ma faa'iidayo haddii dawladda goboleedyada la dagaalamo labada sano ee soo socdaana waxay kaga dhamaan doonaan isagoo saal isku heriyeenay mana afgan bii karo haddii isleeyahay waad afgan bii kartaa ma afgan bii karo sidoo kale dawlad goboleedyadan qasnadahoodu maran yihiin ee waxba haysan ee tabcaaniinta iyana ma socon karaan shaagna uma rogman karo haddaanay dawladda dhexe ku xidhnayn ama ha noqoto wax soo saarka dawladda dhexe ay soo saarayso cashuurahooda yar ama ha noqoto mucaamaadka adduunka oo dhan oo la soo marinayo dawladda dhexe waxba ma qabsan karaan period marka in wax khalad ay marka hore labada dhinacba arka ay ku celceliyaan waa khalad farmaajo maalintii markay dhacday rabshadu ay u yeeray anu waxaan ka jeclaa July inuu u yeero
July rag isaga ka tirsan baan la qaybsaday sheekada oon ku yidhi Maxamed Cabdilaahi Farmaajo madaxweynaha federaalka Soomaaliya meel xun bay arrintu maraysaa waxaa la rabaa arrintaa inuu heerka ugu sarreeya ka galo uu u yeedho uu yidhaahdo maxaa idin daran maxaan idin qabtaa sidaan BBC-da ka idhi like a father like a child wiil iyo aabihiis dadku waxay wax wada qabsadaan markay is wada hadlaan waxna waa lagu kala duwanaan karaa waxna waa lagu heshiin karaa labada dhinacba waa failure aniga sidaan u qabo labada dhinacba way ka gaabiyeen xilkii ay ummadda Soomaaliyeed u igmadeen daawadayaal waa showga gaar hayo idinkaga socda stuudiyaha magaalada London waxay la socodsiinaya anigoo Cabdullaahi Khaliif waxa isku soo dabraday ustaad Muxyidiin Jariir Nuur Wadani oo Kanada jooga gaar haye waa golahaas gacalka Soomaaliyeed gees kasta oo adduunka joogan u gudboon yihiin dawladda guna kama qaadano gacan saarna mucaarad kale ma lihin cid gooniina oo ma adeegno fikirka waa lagu kala gadsanaan karaa laakiin danta guud waa mid goori ayaan gabagabada hadalku waa sidii guujis Allah u naxariisto u lahaa aan ku garawnay gaar haye ugayiga ilaale waxa caaw martino ah Faisal Cabdi Roble oo Los Angeles California degan oo arrimaha geeska Afrika khabiir ku ah oo idaacadaha iyo VOA-da iyo BBC-da iyo kuwa Soomaalidaba iyo radio-shaba ka maqashaan caawa ka faa'iideysanaa qaybihii dambe waa barnaamij weeye Faisal arrimihii geeska Afrika am dib ugu noqon qolyaha kale bari waxa la leeyahay shir baa ka jira saa hadda sheegay waxa la soo keenayaa Eritrea iyo Ethiopia Saudi Arabia dad baa leh madaxweynaha Djibouti baa la yani casuumad loo sameeyay abi maan laweyd wuxuu lahaa marka madaxweyne Farmaajo asaga qaybta ugu badan arrimahan Eritrea iyo Djibouti oo kala qayb qaatay marka hadiiba Djibouti la casuumay maxay kula tahay waxa Soomaaliya madaxweynaheeda loo casuumi waayo oo abiiba uu sheegay inuu kaalin fiican ka qaatay geeska Afrika wallahi ma garan karo laakiin isaga kollaba de waad ogeyd Maxamed Cabdilaahi Farmaajo aanu dadkii ugu hor taageerayna waan ahaa ma kaba dhawaajiyay intaanu bilaabin arrinta markii dadka Soomaaliyeed ku canaanteen Maxamed Cabdilaahi Farmaajo in uu Djibouti yar gacan bidixeeyay oo lahaano waa arrintan opportunity bay siinaysaa madaxweyne Farmaajo inuu ka duqeeyo in carada yar isagii Djibouti dhex timid u bedelo opportunity sidiina way dhacday waxa loo macsuumi waayay Maxamed Cabdilaahi Farmaajo runtii ma mala awaali karo mana jecli waxaan ogeyn inaan mala awaalin laakiin waxa dhici kartaan isleeyahay duqnimadii Farmaajo inay meesha ku dhamaatay laakiin saddexdan dal ee la casuumay saddexdu xad bay leeyihiin interestyo gaarana way leeyihiin oo ah Djibouti waa number 1 takada ugu weyn ee Ethiopia xumara waa Djibouti secondly waxa laga yaabaa in Eritrea ay factor cusub noqonayso oo ay ku soo biirayso xiriirka ama meesha Ethiopia wuxuu soo mari doonaan anfarta ayay wadaagaan oo dhinacan casab iyo masawac iyo qaybtan la isku haysto Eritrea ka qabsatay Djibouti Ethiopia way u dhowdahay secondly waxa laga yaabaa in uu marxaati weyn rabo Sacuudigu oo deegaanka marxaatiga weyn oo Ethiopia yahay because waa dal weyn oo 100 milyan oo iyada abiyo hadda loo arko he's a hot shot waxa loo arkaa community ama badeecad qaali ah hadda badeecada qaaliga aba meelo badan isaga albaab u furaysa ma garan karno in uu Isaiah Siri hanoo dhaxeeyo isagu ama ka qayb gala shirka wax ka qorayo mala awaalay ama analysis ku sameynayna ma akhrin arrinta laakiin dhowrka cisho soo socdo waa soo bixi doonta waa tahay hadda sa arkaysid khilaafkii dawlad goboleedka yani warmurtiyeedkii Kismaayo waad akhrisay madaxweynuhu 17ka bisha oo isniinta ah hal yimaado yiri hadda arrintiina waxay maraysaa yani galmudug oo leh madaxweynihii waa cayrinay ayaguna leeyihiin gudoomiye baarlamaanka cayrinay marka arrintu inay saa ku dambayso maxaa sababay kula tahay wallahi inertia waxa la yiraahdaa I think bariyahan oo arrintu way soo socotay gaar hayo hadda muddo sanadba way soo guurguuranaysay Jubba iyo inay isku soo xumaadeen si khaladka meesha ka dhacay waxa weeye Jubba Ahmed Madoobe iyo Farmaajo federal government constituency bay wadaagaan waxa constituency leeyahay dadka labaduba ay ka yimaadeen meelo badan siyaasaddu ma aha qabiil laakiin waa constituency labaduba constituency ku leeyihiin Jubbaland in ay iska kaashadaan bay ahayd galmudug labaduba constituency bay ku leeyihiin because isagoo prime ministerka adeegsanaya ayuu constituency ka dhigan lahaa Hirshabeelle iyo galmudugba isagoo khayra adeegsanaya waxay ku tusaysaa in aan fakarka la sheelin
ma fahamtay mar qof baa xanaaqaya madaxweynuhu ku furtuuraya ama prime ministerka gogasha la kala qaadanaya politics waxay yiraahdaan waa like a sausage making gaaladu marka bahalkan ay sameynayaan hot dog la yiraahdo boqol arrimood baa la isku qasaa oo la jacburiyaa oo la isku dhex daraa oo isku hadhowna waxbaa ka soo dhex baxa shape ah siyaasaddu straight line maaha ama jid toosan maaha waa jid weecweecda marka mar la isku xanaaqo mar labaad mar saddexaad mar afraad inay isku soo noqdaan bay ahayd I think arrintan way daawanayeen labada dhinacba haddana way qaraxday laakiin aniga waxay tala iga ahaan lahayd hadduu madaxweyne farmaajo macsuumay no matter what khalad kastiba ha dhaco inta ay shandadooda qaataan inay iska xaadiriyaan weeye because at the end of the day marka wax kastiba dhacaan waa madaxweynihii dalka isagoo khaldan hadduu almiina kuu yeedhay tag arrimahaaga hordhigo marka waxaan ku bogaabinayaa qolyaha dowlad deegaanadu in ay madaxweynaha hadalkiisa aqbalaan ay u tagaan marka sida muuqata inaysan tegin bay u dhowdahay waa suurtagal inay tagaan marka aqoon-yahanadii Soomaaliya qaar fikirkooda dhiibteen xaggee halkan laga aadaa maxaa tala ah oo arrimaha Soomaaliya well arrintan waxaan u malaynayaa dee lama kala raaci karo labaduba in my opinion labaduba khaldan yihiin way gabeen dadka Soomaaliyeed in maalmaha soo socda haddaanay u tegin oo intay tagaan aan la soo cafiin si cusubna aan la soo galin haddaanay sanadka sanad aqalka sare gudiyada uu sameeyay aanay wax ka xalin arrinta oo intay dhex galaan wax ka xalin farmaajo waxa uu haray 2 sano kuwan kalena waxa uu haray sanad iyo bar ama sanad waxaad arki doontaa dirty politics wax la yiraahdo iyadoo la isla qastay iyadoo lacago la isticmaalayo iyadoo darmada la iska hoos jiidayo taasna kaabayaashii yaraa ee la soo dhisay ee hadda uun ambaqaadka ahaa uu kiitin amaanay uu yidhi progress fiican baa la sameeyey 3 sano 4 sano ugu dambeeyay ayaa inaga soo daciifi security-ga xumaan dhaqaalaha xumaan marka aniga appeal ama codsi waxay iga tahay kow in ay tagaan 17keeda haddii ay karaan haddii taa ay dib uga dhacaan inay albaabka u furaan wada hadallo hoosaad ah oon shaac bixin saaxiibka waan arkay tweetku maanta qoray waxaasoo kale aanu ku talin maayo waxaan ku talinayaa even hadday 17 ka gaari waayaan in behind the scene talks ama wada hadallo dahsoon villa Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada ay sameeyaan because the alternative ama optionka inoo haray baan qurux badnayn oo ah isjiid iyo kala daba wareeg iyo darmada isku hoos jiidaan taana taladeedu ma fiicna aan ku noqono Michael Keaton Satiri wuxuu ku bilaabay uu dhameeyayba saan ugu tagay wadanka Abu Hadda yahay shaki male laakiin wuxuu isku dayay dadaal inuu sheego laakiin wuxuu sheegay inta badan khudbadiisu waxay ahayd cadaalad darro garsoorkii dawladda baad iyo dadkii in la qaado sidoo kalena dawlad goboleedka ayaguna wuxuu yiri niman siyaasiyiin oo wax dhan buu yani bursh wada mariyay laakiin markii dib wuxuu yiri waxa la gaaray benchmark for IMF marka taas de waxa diidaya wuxuu sheegay baa ka hor imaanaya marka ma iska siyaasad iyo yani wax uu sheeg bay ka tahay mise si gaaladu say u fikiraan way naga duwan tahay iyagu multi track wax la yiraahdo meel khariban ay arkayaan siday u maareyn karaan bay meesha khariban isku dayayaan laakiin inta hagaagsanna ma joojinayaan way wadayaan iminka dalkan Mareykan joogno ama Ingiriiska joogto dadkan madow sida loo dilay day night wada aragtaa laakiin madaxdii madowgu intay gogashoodii gurtaan aqalkii cadaa iyo baarlamaankii kama baxayaan bimacni politics is engagement siyaasaddu waxay ka tolantaa inaad had iyo jeer body contact labadii qof isku tolaadaan la is arko la is hardiyo la wada hadlo la wada sheekaysto marka uu ku amaanan yahay dawladda dhexena way ku amaanan tahay in financial sector-kii maalinta ka dambaysa la wanaajinayo waxaana ka caawinaysa waa gaalo la soco dadka inta badan gacanta ku haya qorsheynteeda iyo implementationkeeda waa World Bank iyo IMF meelaha Soomaalida loo daayay waa meelaha haantu hoosta uga dhacday ama cadaaladda ha noqoto ama corruptionka ha noqoto ama security ha noqoto saddexdaa haykala ama arrimoodna waa saddex muhiim ah anigu kolba waan soo arkay Muqdisho ummadda Soomaaliyeed waa u diyaar gaarhayo dawlad taama inay hadda maareeyaan naas nuujiyaan cashuurtooda bixiyaan waxa aad iyo aad uga gaabiyay dawladii ama tan goboleed ha noqoto oo dawlad ogtahay ninkii ugu fiicnaa aynu rajaynaynay inuu Puntland wax ka qabto maanta meeshay marayso intii farmaaj intii farol ka tagay baa hoos uga dhacday
meelaha kalena ay naga badaa bimacni waxa meesha dhiman waxa weeye dadkii waad hore u tallaabsadeen isa saamax baa dhacay isdhexgal baa dhacay kajiishiye ka soo baxa ayaa xamar tegaya ciyaal aan ku ogaado raatoole jigjiga ayaa xamar iga soo wacay bimacni halkaa ummaddu waa ka dhisantay ummaddu meeshay ka khariban tahay waa madaxnimadaasna waxay ka kharibantay waa unuga sida aynu u yagleelnay dowladda ayaa marka horeba khaldanayd hase ahaatee meelo sectors baa wanaagsan waa in kuwaa la naasnuujiyaa meelaha kalena we cannot walk away lama odhan karo farmaajo hujuun ha lagu qaado 4 sano u leeyahay 4tiisii sano labu qaatay 2 sano politic waa furan yihiin sida la isku abaabulayo sida baarlamaanka loo abaabulayo isaguna uu abaabulayaa laakiin waxa ka xaaraantimaysan abaabulkaas lacaga beena in labada dhinacba isticmaalaan handadaad in isticmaalaan qori iyo askar iyo niisa in la isticmaalo taasina ka xaaraan bay tahay kiitaa isticmaalaana waa ka jidka ka weecanaya waa tahay gabagabadii baan ku jirnaa barnaamijka waxaan u noqonaynaa Soomaali galbeed oo ku soo gabagabeynaa iftiin yar baa ka jira madaxweyne Cagjar wasiiradu doortay kulli waa aqoon-yahano 100% ugu dhawaan 96 waa niman shahaado PhD haysta ama master inta kalena waa dad khibrad leh marka soo aragtaa marka soo u dhisay wasiiradaas iyo maamulkaas I don't know anu 69 inay waa dad wax bartay inta aan ku dayno because wali statistics lagama qaadin hadalkaasina wuxuu ka soo baxay ninka Jawaar Maxamed la yiraahdo marka isaga qudhiisuna mararka qaarkood hadallada waa turtura laakiin anigu kolba inta aan ka arkay dadka aan aqaano waa dad runtii mutacallimiin waxa mutacallimada u dheer waa dad administration sida kuwan xamar ma aha asagoo NGO ka shaqeeyo oo waliga xafuus maamulin in meesha ugu sareysa laga dhigo ama wasiir laga dhigo dhalinyaradan da'doodu ha yaraadaan laakiin 7 sano 8 sano bay xafiis maamulayeen marka aad shahaadada qaadato waxa ka importantsan waxa gaar ahayo mar baynu ka sheekaysan doonaa anigu hadda 30 sanaan maraya iyo ko waliba waxa weeye maalinta iskuulka aad ka soo baxdeed shahaadada qaadato problem solving baa taqaan sida loo fakaro waxna loo analyze kareeyo laakiin ma taqaanin sida xafiis loo maareeyo on the job training way xafiisyadu marka inamadan anu saan ku arkay waxay isugu jiraan qof 30 sano leh niman maalin ka sheekeynay Ismaaciil Cirgujo oo kale oo 30 year experience leh iyo inama 7 sano 8 sano experience leh laakiin masters haysta aad baan ugu amaanayaa dadka u soo xushay caqabado waaweyn baa hor yaala political issues waaweyn baa hor yaala madax banaanida deegaanka hortaala askartii federaalka oo wali deegaanka Soomaalida gaar ahaan magaalada Jigjiga sida carrada u daadsan baa hortaala soo isuga bixin lahaa kuwaas baa hor yaala Cabdi Maxamed Umar oo maxaa la yiraahdaa disturbance iyo waqcad weyn ku keenay August 4 magaalada bilicdeedii iyo Jigjiga iyo infrastructure-kii iyo lacagihii meelaha yaalay baa ku yaala hadda oo la ii sheegayo cabsi weyn ay ka jirto dad badan oo baaxmisir ku haysta in meeshan jinacsani la yiraahdo shir maalinta lagu qabtay oo go'aanada lagu gaaray ay ahaayeen dad la tilmaamsaday in businessyadooda la gubo ama soo argudasho waxyaabo badan baa Mustafa horyaala Mustafa wuxuu u baahan yahay inuu talab balaarsado inuu talab badan raadsado in uu naxaafad isku soo koobin in uu ummadda Soomaaliyeed waxyaabaha ka maqan si fiican uga hadlo in uu ogaado maalintii la doortay ama meesha la saaray wax kamid sidii doonaha lagu saaray in aanu ka wakiil ahayn adsaaba laakiin uu ka wakiil yahay dawlad deegaanka Soomaalida ama Somali Regional State in lagu goobaabiyo isteebyada uu qaaday maanta ilaa maalintii uu meesha qabtay waa meesheeda waan ku goobaabinaynaa wixii talo iyo tusaale uu nooga baahdana waanu la garab taaganahay waxaan ka ilaalinaynaa Mustafana runtii aan anigu ku goobaabinaya qaaqlayaasha siyaasadeed inaanu inaba u jixin jixoon handadaad hanjabaad iyo waxaas oo kale inaanu u jixin qofka qualified ka ah inuu geeyo inta election laga gaarayo Jigjiga hadhow election bay gali doontaa cidii election ku guuleysata ayuuba mayor ka noqonaysa ilaa inta ninku isagu doorto oo sharciga waafaqsan experience ina leh hadii loogu yimaado anaga u helinayna waa tahay su'aasha u dambaysan ku soo xiray waxa weeye waxaad tahay nin arrimahan kaabayaasha dhaqaalaha injineera hawlahan magaalo dhiska dib dhiska marka maantana waan arkaysay waxa ka dhacaya Addis Ababa iyo gobolka Oromia dadkoodii jamhadoodii oo NLF oo kala ahayd inay soo dhaweystaan warma la arkay adoo aqoon-yahana iyo ONLF iyo Siraaji Dulmadiid waxa tirabta oo wada socda
in dadka Soomaaliyeed hal ayagu ay soo dhaweeyaan ninkii hadda ay sheegaysa waxa la mid ahna afka kaba laga saaro ila naga aamus qof inta la ogo qurba joogo waxyaalahaas ku hadlay marka goorma la arkayaa bas ka qayb qaadanaysa adigu shakhsi ahaan wadankii jil ugu noqdo aad arrimahaas aqoonta ay leedahay oo dhinacaas ah wax dhisidda iyo kaabayaasha dhaqaalaha inaad ka caawisid wadankii anu I don't know waad la socotay maalin inaan maqaal dheer ka qoray Muqdisho iyo aageeda iyo deegaanka iyo cimilada iyo sida Muqdisho aan rabo in loo ilaaliyo walba hadda aniga qorshahaasi iguma jiro sidii siyaasiyiinta aanu jawaabay laakiin waqtigeeda leedahay hase ahaatee wixii talo iyo tusaale la iga baahdo ama ha noqoto qaybta aad sheegtay ama qaybaha kale oo runtii aad iyo aad iyaga qudhooda ugu dheerahay waa halkeeda waxa kaliya hadda huba in si fiican aan ugu xaydan karo difaaca dawladda cusub la dhisay haday jidka fiican ku taagnaato qaaqlayaasha aad sheegayso in afka aanu kaga dhufano aanan ognahay Mustafa lagama yaabo inuu og yahay aanu ogahay inaanay inaba aqlabiyad ku lahayn ama jigjiga ha noqoto ama Hargeysa ha noqoto ama Muqdisho ha noqoto meel kale ha noqoto noocaas oo kale because Soomaalidu heerka ay tahay marka taageerayaashu meelo badan bay ka imanayaan runtii laakiin meeshan meel fudud ma aha taariikh baa hortaala gumaysi in badan ku habsaday baa hor yaala haddana ummadda Soomaaliyeed waxay u kala bixi doontaa haddii xisbiyaadka la furo kii Oromo xidid la yeelanayana Oromo xidid la yeelanaya kii Amhara partiska iyo Gumbood 7 bimacna qolo kasta waxaanu kula xiriiri doonaa hadaynu Soomaalina gidigeen ajendahay wato ma aha kuwan deegaanka degan Soomaaliya Ethiopia meelo badan bay iska soo qabsan doonaan we need to identify cideeba hor socda cideeba arrimaha Soomaalida iyo danaha Soomaalida horumarinaysa cideebaan duulaan nagu ahayn cideebaanan leenayn waad ogtahay maanta dadka la lahaa Puntland bay ku soo qaxeen 300 400 sano deganaayeen meelahan ay ka soo qaxeen waxa soo kale looma dul qaadan karo ama geeska Afrika hal yiraahdo way israacayaan ama yaani meeshan ay ka soo qaxeen aan waan aqaana wa 400 years deganaa oo Axmed Guri waqtigiisii meesha tagay oo dad moogtay labada af bay yaqaanaa marka gaar hayo hawluhu way badan yihiin oo laga shaqeyn doonaa laakiin waxaan diidanahay statements khafiifa on taariikh sal ku lahayn on region sal ku lahayn oo mafriishiyada laga sheekaysto in ummadan lagu jeediyo waa khalad. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.